waan ku salaamay daawade muuqaalka maanta waxaan kaga hadli doonaa waddanka saddexaad ee ugu dadka badan qaaradda Aasiya. muuqaaladii hore waxaan ku soo qaadanay qaaradda Afrika saddexda waddan ee ugu dadka badan. sidoo kale qaaradda Aasiya ayaan ka soo labada waddan ee ugu dadka badan. waddankana waa kii saddexaad. waddanka saddexaad ee ugu dadka badan qaaradda Aasiya waa waddanka Indonesia. magaca rasmigii waa Jamhuuriyadda Indonesia. waa waddan ku yaala koonfurta bariga Aasiya iyo inta u dhaxaysa badweynta Hindiya iyo badweynta Pacifica. waxay ka kooban tahay jamhuuriyaddani in ka badan 17,000 oo jasiiradood oo ay ku jiraan jasiiradaha caanka ee Java iyo jasiiradda Sulawesi. Indonesia waa jasiiradda ugu weyn adduunka iyo dalka 14aad ee ugu dhulka weyn adduunka. dhul ahaan waxa uu ku fadhiyaa waddankani 1,904,569 kiiloomitir oo laba jibaaran. Indonesia dadka ku nool tiradoodu waa 270 milyan oo qof. waana dalka afraad ee ugu dadka badan adduunka, halka uu yahay dalka saddexaad ee ugu dadka badan qaaradda Aasiya. sidoo kale waa dalka koowaad ee ugu muslimiinta badan caalamka. Java waa jasiiradda ay ku nool yihiin dadka ugu badan ee waddankani. Indonesia waa madaxweyne jamhuuriyadda dastuuriga oo leh sharci dejiye la soo doortay. waxay ka kooban tahay jasiiraddani 34 gobol, kuwaas oo 5 ka mid ay leeyihiin xukun hoosaad u gaar ah. caasimadda waddankani waa Jakarta. waana magaalada labaad ee ugu dadka badan adduunka. Indonesia waxay xuduudo la leedahay wadannada kale ah Papua New Guinea, East Timor iyo qaybta bari ee Malaysia. iyo sidoo kale waxay xuduudo dhanka badda kala wadaagtaa Singapore, Vietnam, Thailand, Philippines, Australia, Palau iyo India. inkastoo ay dad badan ku nool yihiin gobollada dalkani, Indonesia waxay leedahay dhul cidlo ah kuwaas oo ah dhulka ay ku nool yihiin dadyoga kala duwanaanshoodu qeyr-xadka yahay. jasiiradaha Indonesia ayaa leh gobollo qiimo leh oo ganacsi ilaa ay yaraan qarnigii 7. hogaamiyayaasha maxalliga ah si tartiib ayay horumar uga sameeyeen joojinta shisheeyaha gudahooda. ganacsatada sunniga ah iyo culimada suufiyada ayaa keenay diinta Islaamka waddanka Indonesia, halka diinta Kiristaanka ay keeneen badmareennadii reer Yurub. inkastoo ay mararka qaarkood carqaladeeyeen Boortaqiiska, Faransiiska iyo Ingiriiskuba, Netherland waxay ahayd kuwii ugu horreeyay ee gumaystay Indonesia, oo waxay gumaysan jireen in ka badan 350 sano oo ay ku sugnaayeen jasiiradda. Indonesia oo qaran ayaa soo ifbaxday qarnigii 20aad oo markii lagu dhawaaqay madax-bannaanida 1945. si kasta ha ahaatee 1949 ayay Netherland aqoonsatay madax-bannaanida Indonesia kadib markii isku dhacyo hubaysan ay ka dhex dhacay labada waddan. Indonesia waxay ka kooban tahay boqolaal kooxood oo kala afduwan. dhaqaalaha Indonesia waa kan 16aad ee ugu weyn adduunka marka la eego GDP-ga, waana dalka 7aad ee ugu horreeya adduunka oo dhan. waa awood goboleed, waxaana lagu tiriyaa Indonesia inay ka mid tahay quwadda bariga dhexe ee arrimaha caalamka. waddankani waxa uu xubin ka yahay dhowr urur oo kala ah ka qaramada midoobay, ururka ganacsiga adduunka ee G20 iyo xubin aasaasi ah oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa isbahaysiga ururka koonfurta Aasiya iyo shirweynaha bariga Aasiya. sidoo kalena waxa uu ka tirsan yahay ururka iskaashiga Islaamka. daawada waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. fadlan la wadaag asxaabtaada.